kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii qubanaha VOA-da. Toddobaadkan barnaamijkeena qubanaha VOA waxay idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Saara Cabdi Axmed. qodobadan idin haynana waxaa kamid ah mushkiladda dhinaca muhaajiriinta oo Yurub wali ay ka taagan tahay iyada oo wariyaal ka socda VOA-dana ay halkaasi ku sugan yihiin si ay uga soo waramaan. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo waraysiga toddobaadkan siiyay idaacadda VOA ku sheegay in Soomaaliya aysan gargaar u baahnayn balse ay u baahan tahay maalgashi toos ah. Muranka dhinaca dhulka oo dhibaato badan ku haya meelo ka mid ah dhulka Soomaalidu ay degto ee Geeska Afrika iyadoo meelaha qaarkoodna ay rabshado ka dhashaan. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan toddobaadkan barnaamijka qubanaha VOA. qulqulka muhaajiriinta Yurub ku qulqulaysa ayaa wali si xooliya u socota kana socota dalka Talyaaniga waxaana toddobaadkan oo kaliya gaaray dalkaasi in ka badan 1400 oo muhaajiriin ah oo badankood ka yimid wadamada saxaraha ka hooseeya. dadkaasi waxaa dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay laga soo badbaadiyay badda u dhaxaysa Talyaaniga iyo Liibiya. haddaba koox suxufiyiin oo ka tirsan VOA-da ayaa waxa ay gaareen Yurub gaar ahaan Talyaaniga si ay halkaasi uga soo waramaan muhaajiriinta Yurub soo gaaraysa ee dhinaca Afrika ka imaanaysa. Cabdicasiis Xuseen Cusmaan ayaa kamid ah wariyaashaasi ka socda VOA-da. haatana si toos ah ayuu ugu jiraa khadka Skype-ka. waa tahay haddaba Cabdicasiis bal waxaad nooga warantaa qaxootiga ugu dambeeyay ayaa waxa ay gaareen xeebta Talyaaniga yay u badan yihiin qaxootigan halkaysa ka yimaadeen. Sahray waad mahadsantahay horta waxaan ku suganay magaalada Catania ee koonfurta dalka Talyaaniga labadii maalmood ee la soo dhaafay waxaa dalkan la soo gaarsiiyay ilaa 1400 oo muhaajiriin oo badda laga soo badbaadiyay. qaxootigan ayaa waxa intooda badan ay ka yimaadeen dalka Eritrea laakiin markabka la keenay ama markabka soo gaaray magaalo lagu magacaabo Bozzalos oo koonfurta Talyaaniga ku taala waxa la socday ilaa 90 qof oo Soomaaliya. sidoo kale qaxootiga ka soo cararaya qaaradda Afrika gaar ahaan wadamada saxaraha ka hooseeya waxay ka kala imanayaan dalalka Nigeria, Ghana, Sudan laakiin tirada ugu badan ee haatan dalkan Talyaaniga soo gaaray waa dadka ka soo cararaya dalka Eritrea. waa tahay marka qaxootiga aad la kulantay Soomaalidaas ay ku jiraan qaarkood bal waxaad iga warantaa waxyaabahay ka soo tahriibeen meelahay soo mareen iyo wax ma kala sheekaysata xaaladahooda. Saaray horta si gaar ahaaneed ulamaana sheekaysan oo waxaanu la kulanay qaxootiga iyagoo markaasi dooniyaha ama maraakiibta laga dejinayo laakiin qaxootiga Soomaalida oo aan sheeda kala hadlay markii markabka laga soo dejinay waxay ii sheegeen in muddoba ay dhowr biloodba ku sugnaayeen dalka Liibiya oo dhibaatooyin badan ay soo mareen xabsiyo ay soo mareen safarkoodiina waxay iga sheegeen inay dhulka soo mareen oo ay soo mareen dalka Suudaan saxara ay soo dhex mareen Liibiya. qaxootiga 90 ee Soomaalida toddobaadkii soo gaaray dalkan Talyaaniga waxa ku jira 26 dumar marka dhibaatooyin badan bay sheegeen inay kala soo kulmeen dhinaca safarka ay ku yimaadeen ama ay soo mareen ee ugu dambeyntii keentay in dooniday soo raaceen ay ku dhex jabto badda Mediterranean-ka iyadoo halkaasina ay ka soo badbaadiyeen ciidamada badda ee midowga Yurub. waa tahay mar haddii ay soo gaareen xeebaha Talyaaniga qaxootigan inta badan qaxootigu qaar way ka sii gudbaan qaar dibadujin ayaa loo sameeyaa maxaa xiga xaaladda xigtay noqon karaan maxay tahay qaxootigan waqtigan sida ay ii sheegeen saraakiisha dhinaca socdaalka ee dawladda Talyaaniga waliba gobolkan koonfurta ku yaala Sicilia qaxootiga marka maraakiibta laga soo dejiyo waxa la geeyaa xarumo faraha looga qaado oo lagu diiwaan geliyo kadibna waxa loo kala qaybiyaa xeryo ama xarumo kala duwan oo dalka Talyaaniga oo dhan goboladiisa ka kooban. qaxootiyada qaarkood ayaa markaa waxay warkaan dalka Talyaaniga inaanay fursad badan ka heli karin kadibna waxay sameeyaan in ay dhaqaaq kale sameeyaan oo safar kale ay ugu baxaan dhinaca kale wadamada Yurub iyagoo markaasi badan bartilmaameedsada wadanka Jarmalka ama u sii gudbay ilaa dhinaca iyo waqooyiga qaaradda Yurub halka matalan Sweden ama Finland
ama dalka Denmark halkaasayna bartilmaameedsadaan Soomaali aan kula kulmay magaalada Roma ee caasimadda dalka Talyaaniga waxay ii sheegeen in safarkaas oo kale ay sameeyeen oo waqooyiga Yurub tageen balse markii la soo ogaaday in ay Talyaaniga soo mareen farana looga soo qaaday dib baa loo soo celiyay qaarkood halkan bay joogaan dhibaatooyin badanna way sheegteen oo ah inaanay wadankan shaqo badan ku hayn wadankan marka la eego wadan qani ah maaha marka la eego wadamada kale Yurub ama u wanaagsan qaxootiga marka lacagaha qaxootiga ay wadamada kale ku helaan halkan lagama helo marka waxay ii sheegeen in dhibaato xitaa iyagoo laga soo celiyay wadamadaasi waqooyiga Yurub in halkan markii dib ay u soo noqdeen dhibaato ku haysato waa tahay Cabdicasiis aad baad u mahadsan tahay khudbadu dhowaan ka horjeediyay golaha guud ee qaramada midoobay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa noqotay mid si weyn looga hadalhayo Soomaalida dhexdooda khudbadaas kadib ayaa wariyaha VOA Maxamed Colaad Xasan waxa uu waraysi kala yeeshay magaaladaasi New York ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke wuxuuna shirkaasi kaga dhawaaqay qorshe cusub oo loogu magac daray Grand Program qorshahaas wax weeye dee anagu dalkeena oo ogtahay dhibkana soo gaaray hadda dhibaatada meesha aan taaganahay waa dhib annaga aan soo keenay dhib sideedaba ama ha ahaato khayraad ama ha ahaato maaha inoo keeneen runtii qorshahan aan hadda sheegnayna wuxuu qayb ka yahay qorshaha ah in dalka kale maalgelin lagu sameeyo oo dib loo dhiso khayraadka isaga uu leeyahay loo soo saaray si dadka Soomaalida ugu aflaaxaan dhaqaalaha dahan ee dalkooda iminka kor saaran iminka dahan ee dalkooda yaala ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa sidoo kale ka hadlay dhismaha ciidamo qaran oo ay Soomaaliya yeelato ogsoon tahay ciidan qaran mashruuc hadda la xilooday iyo waxna ciidan qaranka umana dhisayno hadda in al-shabaab kaliya ay ka hortagaan waxaan dhisaynaa waxa weeye mar dambeeto Soomaali xasiloon darre inaysan ka dhicin oo runtii qolo dambeeto ama qabiil ama diin ama wax ku adeeganayso ciidan markaas rasadan inay gaarto isoo wadankan ka soo aflaaxin runtii inay daboolaan baahida ummadda Soomaaliyeed u qabtay in amni sugan la helo ra'iisul wasaare Sharmaarke ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya aysan doonin gargaar balse ay doonayso maalgashi toos ah waxa weeye arrintan la dhaho aidka ama sadaqada waxay abuurtaa waxa ugu xun bini'aadanka la dhaho dependency qofka bini'aadanka inuu ku noqdo yani maxaa la dhahaa afka Soomaaliga inuu yani uu qabatimo in wax un loo siiyo annaga waxaan rabnaa dadkeenu inay wax soo saar yeeshaan waana leeyihiin dad runtii aad u firfircoon way Soomaali ayagoo dowlad aan lahayn qabsaday intaas aan qabo hadday dowlad helaan iyo hadday helaan maalgashi inay Afrika qaybteeda bari oo dhan ay runtii noqonayaan dadka ka muuqda marka sadaqada ma aha kaliya inay tahay wax markaas ay helayso laakiin waxay ku abuuraysaa dadka inay wax soo saar yeelaan dhibaatooyinka ay keenaan muranka lahaanshiyaha dhulka waxa ay horseedaa in meelo badan oo ka mid ah dhulka ay Soomaalidu degto ay ka dhashaan rabshado iyo iska hor imaadyo hubeysan sanadkii tagay dilalkii ugu badnaa ee dhacay Somaliland waxa sababay khilaafyo ka dhashay muranka dhulka wariyaheena magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa nooga soo diray guud ahaan magaalooyinka Somaliland waxyaabaha ugu badan ee keenay khilaafka iyo rabshadaha waxa kamid ah isku qabsiga lahaanshaha dhulka taas oo sababta mararka qaarkood in ay dhacaan dilal kala duwan oo ay geystaan dhinacyada ishaya ama ciidamada amniga oo meelaha qaarkood dhexgala meel kasta oo kamid ah magaalooyinka Somaliland gaar ahaan Hargeysa waxa lagu xayndaabay calaamad ama sees muujinaya inay cidi leedahay dhibaatooyinka inta badan ka dhaca dhulka ayaa dadyo kala duwan u aanayaan ujeedooyin kala duwan oo ay ka mid tahay raadinta dhaqaale lacageed iyagoo u arka in qofka uu dhulka iibsado si uu uga faa'iido sababtoo ah sanadba sanadka ka dambeeya waxa kordha lacagta lagu kala iibsado dhulka sida uu qaba Kaysan Maxamed Ibraahim oo ka shaqeeya arrimaha bulshada walaal waxa kamid ah dhulkii inay dadku iyagu maamulaan halkii dawladdu ka maamuli lahayd qiimaha iyagu ay gooyaan halkii ay dawladda dhexe ama dawladda hoose ay ka maamuli lahayd mushkiladahaasi waxaad arkaysaa dhul balood laba qof laga wada iibinayo oo dadka ay isku dilayaan heer wuxuu gaadhay marka ay dhiigu ku daato oo dhulkii maanta heerka uu marayo in la isku dilo siday doonaan bay ka yeelayaan qiimaha ay doonaan bay u jarayaan haddaad eegtid baloodku maanta wuxuu marayaa $25,000 5 sano ka hor wuxuu ahaa 2,000
dadka dabaqada dhexe ma iibsan karaan. dowladaha hoose magaalooyinka qaarkood iyo guddida ka garnaqista khilaafaadka dhulka ee magaalada Hargeysa ayaa dadka qaarkood aaminsan yihiin inay qayb ka yihiin khilaafaadka dhulka sababtoo ah waxaa dhacda in goob kaliya ay sharciyo kala duwan u haystaan dad kala duwani ama aanay sida saxda ah uga garnaqin khilaafyada qaar. Maxamed Cabdi Jaamac waa gudoomiyaha guddida ka garnaqista khilaafka dhulka ee magaalada Hargeysa waxa uu ka jawaabayaa aragtida ah inay khilaafka qayb ka yihiin. taas maaha suurtagal anuu maxkamadahana dee maartay kuma arag iyagoo uu xukumay laba dhul uu xukumay ma ku arag tribunaalkuna waaba cusub yahay oo kuma arag mar walbana maxkamadu check and balance bay isku sameeyaan halka guddiduna lagu sameeyo check and balance way hubiyaan oo maartay haddii guddida go'aan gaadho dee go'aankeedu wuxuu yaalaa maxkamadda sare qof loo xukumay maxkamadda sarena dee way arkaysaa in laba shay aan meel laga wada xukumi karin maxkamaduna waxay leeyihiin dee darajooyin kala duwan sidaas daraadeed inta badan dadka ayuunbaa ka sheekeeya ee ma jirto laba xukun oo dhaca laakiin waxaa jirta qof xukunkan ku guulaystay oo xukunka kale waayi karaa oo maaragtay guddida u xukumi karta dee maxkamad sare jebin karta maxkamad baa u xukumi karta dee maxkamad kale u xukumi karta marka waxaa dadku u qaadanaya in laba xukun la soo saaray. dadweynuhu sida ay u muujiyaan lahaanshaha dhulkooda waxay had iyo jeer ku xidhaan seeska ama kaabadaha sida gadaasheeda ka muuqata. khilaafka dhulku sanadkii tegey wuxuu noqday ka ugu badan ee keena dilalka iyo dhimashooyinka ka dhaca Somaliland marka laga yimaado shilalka gaadiidka oo iyagu ka tiro badnaa. taas waxay keentay madaxweynaha Somaliland inuu magacaabo 12 wasaaradood oo uu magacaabay guddi heer qaran ah si xal loogu helo khilaafaadiyada dhulka. khilaafka dhulku kaliya kuma ekaanin magaalooyinka Somaliland sidoo kale waxa uu gudbay baadiyaha iyadoo la isku qabsado dhul daaqsimeedyada. Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare waa wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Somaliland waxaana xubin ka tahay guddidaasi uu magacaabay madaxweynuhu. waxa weeyaan dastuurkeena Somaliland qodobkiisa 12 wuxuu sheegayaa dhulku inuu yahay hanti guud oo ummadda ka dhaxaysa inuu yahay dawladuna ay u xil saaran tahay oo maaragtay laamaha kala duwan ee dawladdu ilaa madaxweynaha inay u xil saaran yihiin haddana culaysku annagiiba nagu dhacay culaysku ugu weyn annaguna haysta sababtoo intaa 4 saacadood dhulka la isku eryanaya imika waa dhul daaqsimeedkii inaan ka soo saaro oo maaragtay samayno sharci ama policy laga soo saaro lagu dhiqi lahaa dhulka lagu kala xadayn lahaa dhulka. dhibaatooyinka ay sababaan dhulku ee ka taagan guud ahaan Somaliland ayaa dadka qaarkood xalkooda u arkaan inay dawladdu doorkeeda qaadato. laba arrin buu xal ku muuqda walaal. arrinka ugu horeysa waxa weeyaan in dhulka ganacsiga laga daayo oo ay dawladdu maamusho in dhulka dan guud loo arko oo aan loo arkin dana shakhsi. Barqad Maxamuud Kaariye qubanaha VOA Hargeysa. haatanna Cabdiraxmaano waa fikradaha ay noo soo direen qaar ka mid ah daawadayaasha barnaamijkan ku xiran. Saaray toddobaadkan daawadayaasheenu waxay fikradahooda ka dhiibanayaan arrimaha qulqulka qaxoontiga qaaradda Yurub. xasan absuge oo ku sugan dalka Koonfur Afrika waxa uu yiri Cabdiraxmaano runtii waxaan u mahadnaqayaa ciidanka Talyaaniga oo badbaadiyay muhaajiriin soo maray safarka dhibta badan ee badda. Sayid Cismaan Sheekh Ibraahin oo Boorama jooga wuxuu leeyahay walle Yurub iyo qaxoontiga tirada badan ee ku qulqulaya maxaa kala haysta ciidanka Talyaaniga ee muhaajiriinta badbaadiyayna waan u mahad celinaynaa. Axmed Maxamed Caydiid oo isna jooga South Africa waxa uu leeyahay Yurub waa in ay maraakiibta xil weyn iska saaraan sida ay u badbaadin lahaayeen dadka tahriibayaasha ee safarka halista ah ku soo maraya badda. kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah fikradaha daawadayaashu ay noo soo direen. wixii fikradihiina ama tala ah fadlan noogu soo hagaajiya boggeena voasomali.com ama barta aan ku leenahay Facebook-ga. intaasna waxaan ku joojinaynaa barnaamijkeena qubanaha VOA ee toddobaadkan. haddii aad heysaan fikrado ama talooyin waxaad noogu soo hagaajin kartaan emailkeena qubanaha@voanews.com ama bogga aan ku leenahay Facebook-ga. haddaba intaynu toddobaadka dambe dib u kulmi doono waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.